بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaynu ka warrami doonaa haddii ilaahay qadaro taariikh nololeedka muftiga weyn ee sheekh maxamed sheekh cumar dirir. sheekh maxamed sheekh cumar dirir waa sheekh caana oo dhammaankayaga soomaaliyeed laga wada yaqaano. waa daaci, wadaad, aqoon-yahan, mufasir, khatiib, macallin, mufti iyo brofeser. aad baa loo yaqaanaa sheekha, wuxuuna caan ku yahay tafsiirka qur-aanka kariimka oo ka soo daayo ama ka akhriyo idaacadaha iyo tifiyada kala duwan ee geyga Soomaalida. waa sheekh dhammaantiin ugu wada qaali ah oo aynu wax badan ka baranay. in yar ayaynu insha allahu tacaala dul istaagi doonaa taariikhdiisa iyo sooyaalkiisii soo jireenka ah. waxyaabaha aynu dul istaagi doono ee maqaalkan insha allah u sheegi doono waxaa ka mid ah dhalashadiisii, halkii uu ku dhashay, sidii uu ku barbaaray, iyo meeshii iyo halkii uu ku noolaan jiray waqtigii uu yaraa. lambar 2 waxaan ka warrami doonaa waxbarashadiisii, halkii uu wax ka bartay, ciddii uu wax bartay iyo sidii wax u bartay. lambar 3 waxaynu ka warrami doonaa allah u naxariistay aabihii kadib sheekh cumar sidii uu noqday iyo culimadii wax bartay dhimashada aabihii kadib. qodobka 4 waxaynu ka warrami doonaa dacwada diinta, xilliguu dacwadda bilaabay iyo sidii uu ku bilaabay. lambarka 5 waxaynu ka warrami doonaa caqabadihii uu kala kulmay faafinta dacwadda. waxaynu ku soo koobi doonaa waxqabadka sheekhu uu leeyahay sida xalinta khilaafaadka, shaqaaqooyinka, dagaaladii sokeeye, waxyaabaha la midka iyo ardayda uu waxbaray nooca yihiin ayaynu qaab ka mid ah tixi doonaa. sheekh maxamed sheekh cumar dirir wuxuu dhashay sanadkii 1963. waxa uu ku dhashay deegaanka la yidhaahdo Dalooburey oo ku taala dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaana halka ay iska galaan kiilalka Soomaalida iyo kooramada. sheekh maxamed sheekh cumar dirir waa curadka aabihii sheekh cumar dirir. hargeysa ayuu ku hana qaaday oo caruurnimadii ku caweyn jiray sidoo waraysi ku sheegay sheekhu. isagoo ka warramay sheekhu wuxuu yidhi, hargeysa iyo agagaarkeeda ayaan kusoo barbaaray. barbaarin wanaagsan ayuu sheekhu helay oo waalidkii iyo aabihii ka helay. qoys ahludiina oo diinta ku wanaagsan ayuu sheekhu ka soo jeeday. adeeradii iyo qaraabadii ku dhoweyd aad ay diinta u ixtiraami jireen oo ay u baran jireen. sheekhu isagoo ka warramay adeeradii iyo dadkii ehelkiisa ahaa wuxuu yidhi, ilmo dirir 5 ayay ahaayeen, 4 ayaa culimo ah. qoys culimaa ayaa lagu yaqaanay oo ka soo jeeday sheekhu. sheekh maxamed waxa uu ahaa wadaad caalima oo diinta aad u yaqaan. aabihii sheekh cumar wuxuu ahaa wadaad caalima oo diinta aad u yaqaana. sheekh maxamed sheekh cumar aabihii marka waa sheekh cumar ah, isla markaana dadka aad u faa'iideeya. meelaha uu sheekh cumar wax ka dhigay waxaa ka mid ahayd oo macallinka ka noqday Hargeysa, Berbera, Gaabo iyo meelo badan oo kale oo dowlad deegaanka Soomaalida ka mid ah. haddaba sheekh maxamed aabihii markii koowaad isaga ayuu wax baray oo wax fahansiiyey. macallinkii koowaad ee alifka u qabtaana wuxuu ahaa aabihii sheekh maxamed sheekh cumar. aabihii baan jeedaa sheekh cumar dirir buu ahaa marka. waxyaabaha uu ka qaatay ee uu ka bartay waxaa ka mid ah fiqiga, axaadiidta, naxwaha iyo qur-aanka. qofku inuu aabihii wax baro ama waalidkii wax baraa waa arrin aad u wanaagsan weeye. waxoogaa kadib markii aabihii uu geeriyooday sheekha ee uu gaashanqaad noqday qiyaastii sanadihii 1972 waxaa geeriyooday aabihiisii iyo macallinkiisa qaaliga ahaa ee sheekh cumar dirir allah u naxariistay. waqtiga da'da sheekh maxamed aad bay u yareyd. tiir weyn oo noloshiisa ka mid ah ayaa ka baxay, waase qadar ilaahi subxaana watacaala oo qoran dhimashadu. waxaase arrin lagu farxa ahayd in sheekh cumar ku ducaysan jiray in ilaahi subxaana watacaala uu ka dhigo wiilkiisa sheekh maxamed mid dhexla cilmiga. dabcan dhab bay arrintaasi noqotay oo innaga ayaa markhaati ka ah sida uu wax u bartay sheekh maxamed sheekh cumar, oo markaa sidii dacwadii mustajaabada ahayd u noqotay dacwadda uu aabihii sheekh cumar ugu duceeyey. markuu yaraa wuxuu xooga saari jiray xagga barashada diinta sheekh maxamed. asaagii qaar ayaa la yaabi jiray oo ku weerarsan jiray, sida uu sheegay waraysi uu bixiyey wuxuu yidhi, 80meedii markaan cilmiga ku dhex jirnay dayartu way nala yaabi jireen
waxay nagu odhan jireen buu markaa sheekh maxamed balcaamad yar iyo masaajid yar ayaad dhex wareegtaan malaxa waxaa kuu fiican inaad wax shaqo fiican aad ku helaysaan aad raadsataan saas dadka nagu odhan jireen buuri markaa sheekhu video iyo muuqaal duubay ayuu markaa kaga warramay dhimashadii aabihii kadib sheekh maxamed culimo fara badan ayuu diinta ka qaatay culimadu wax ka dhigtay waxaa ka mid ahaa waxay kasoo jeedeen qoomiyadda qaar ka midii waxay qoomiyadda la yidhaahdo oromada dugsiyo kala duwan ayuu markaa sheekh maxamed kasoo baxay wax ku bartay kana soo qalinjabiyey aabihii dabadii madarasado hargeysa ku yaalana waxbuu markaasi ka bartay luqadda carabigana wuxuu ka bartay masaaridii loo soo dari jiray soomaalida macalimiintii sacuudiga ka iman jirtana sheekhu laftooda waxbuu ka bartay sanadkii 1982 ilaa iyo 84 sheekh maxamed waxa uu tegey dalka masar wuxuuna galay imtixaan dugsi sare ah wuxuuna ku guuleystay imtixaankaasi dabadeed dadaal dheeraada uu sameeyey isaga ayaa markaa wax isbaray sanadkii 1996 wuxuu sheekhu u dhaafay waddanka Pakistan oo ku yaala koonfur Aasiya imtixaan jaamacadeed ayuu galay wuuna ku guuleystay alxamdulilah jaamacadda la yidhaahdo al-Wifaaq al-Islaamiya oo dalka Pakistan ku taala ayuu sheekhu shahaadada sare ee masterta ka diyaariyey kuliyadda uu qaatay waxay ahayd daraasaadka islaamka iyo luqadda carabiga ayuu markaasi jaamacaddaasina ka soo bartay imtixaano kale oo kala duwana sheekhu markaa uu galay sanadkii 1999 sheekhu wuxuu booqday dalka masar isagoo markaa la kulmay culimo fara badan oo ka mid yahay sheekhul azhar dowra ayuu kusoo qaatay dalkaasi masar xalqooyinka masaajidda ayuu markaa aad uga faa'iidaystay sheekh maxamed oo wax badan uu ka dhigtay jaalad kala duwan ayuu markaasi sheekhu ku takhasusay majaalada uu sheekhu ku takhasusay waxaa ka mid ah tafsiirka quraanka kariimka luqadda carabiga mustalax alxadiidka fiqiga usuul fiqiga cilmi tajwiidka cilmiga caqiidada naxwaha culumta quraanka kala duwan cilmiga aayadaha cilmiga todobada dariiqo ee quraanka loo akhriyo taariikhda shareecada asraarta shareecada iyo waxyaabaha la midka tafsiirka quraanka kariimka haddaynu soo qaadano sheekhu marar fara badan ayuu akhriyey ilaa haddana uu akhriyaa markii ugu horreysay ee tafsiirka quraanka kariimka uu akhriyey waxay ahayd baladha sanadkii 1986 waxaana markii ugu horreysay laga sii daayay idaacaddii hargeysa sanadkii 1991 halka tiifiyadan laga sii daayay 1996 maqaal waqti hore laga diyaariyey sheekh ayaa lagu sheegay arrintaasi quraanka in badan ayuu tafsiirka markaa dhameeyey maqaal laga qoray 1916 waxaan jeedaa 2016 ayaa lagu sheegay inuu 7 jeer quraanka dhameeyey kuna dhameeyey masaajidka al-Huda oo ku yaala santarka magaalada Hargeysa oo la yaqaan Rusheeye sidoo kale sheekhu wuxuu marar badan quraanka dhameeyay idaacadda Hargeysa iyo TV-ga qaranka ee Soomaaliland ilaa haddana sheekhu tafsiirka uu wada xadiis haddaynu soo qaadano xadiis sheekhu aad buu ugu horeeyaa aad buu ugu fiican yahay kutubta xadiista ee sheekhu qaar ka mid ah uu akhriyey dawuu duubay waxaa sheekh markaa anigu shakhsiyan ka dhageystay kitaabka la yiraahdo Riyaad Saalixiin oo duubay sheekhu wax badan ayaad markaa ka faa'iideysaa markaa tafsiirkiisa iyo waxyaabaha xadiistiisa aad dhegeysanayso luqadda carabiga oo kale luqadda carabiga aad buu ugu horeeyaa carabiga in badan buu akhriyey qaarkood markaa way duuban yihiin naxwaha oo kale sheekhu qayb weyn buu ka ahaa dacwadda diinta sheekhu caan buu ku yahayo inta ugu fara badan dacwadda diinta oo kale uu faafiyaa isagoo wuxuu bilaabay markaa 19 jira faafinta diinta ilaa haddana ilaahay markaa u dheereeyay uu wadaa caqabadii markaa uu kala kulmay dacwadda diinta waxaynu ka soo qaadan karnaa waxyaabo badan baa sheekh ku hor yimiday shay kasta oo la qabanayana caqabad ayuu markaa leeyahay haddii diinta aad faafinayso idin lacag kuguma siinayso waad ka caqabad badanaysaa qofka aragti xisbi faafinaya qofka mushaar ku qaadanaya iyo qofka la midka markaad u banbaxdo inaad dadka gaarsiiso waxa ugu qiimaha badan oo diinta khatar badan ee kusoo wajahaysa sheekhu dacwad faafin ayuu bilaabay isagoo daygi lahay wada caqabadaha oo kale u yimid waxa ka mid ah dagaaladii dalka ka dhacay wax badan oo geedi socodka ay kharibeen dagaaladaasi waxayna ku yeesheen markaa saameyn weyn ayay ku yeesheen
waxaa dhici jirtay mararka qaar in dacwadda loo xidho meel kasta oo markaa qofku waxa fiican inuu diyaar garoobo sheekhu markaa marar fara badan waxaa dhacaysa in la doonayo in la diloba waxaa la dhahdaa markaa waxa marba la isku dayay in laga takhaluso oo la dilo waxaa la dhahaa sanadkii waxaan ujeedaa sanadkii 2001 subaxu masaajidka ka soo baxay sheekhu ayaa shirqool abaabulin loo dhigay waxaana u dhigay sida la sheegay dad ay markaa sheekha iska sanifay oo diiday alxamdulilah ilaahay wuu ku badbaadiyey dilkaasi balse waxaa la gaarsiiyay dhaawac culus oo sababay in dhakhtar dibadda sheekha markaa loo qaado markaa caqabadahay ka mid tahay in la xidho in dil lagu qorsheeyo in la dhaawaco waa caqabadihii markaa kasoo gaaray faafinta dacwadda diinta sheekhu waxqabad aad u fara badan buu markaa leeyahay halkana kuma soo koobi karno waxqabadkiisa markaa waxa ugu weyn sheekhu wuxuu maxkamad ka aasaasay maxkamad islaamiya sanadka 1998 tuulada la yidhaahdo Gumburaha oo aabihii la naxariistay sheekh cumarna masaajidkii ugu horreeyay markaa uu ka dhisay waa sheekhu markaa halka uu kasoo jeedo waxaa kaloo sheekhu aasaasay maxkamad sharciga ay Hargeysa ka aasaasay 1999 isaga ayaa markaa mas'uul ka noqday waxqabadka sheekha waxaa kaloo kamid ah dadkii ugu horreeyay aasaasay tartanka quraanka kariimka ee sanadaha loo qabto waxayna aasaasay sanadkii 1999 sheekhu wuxuu bilaabay xafiiska xujaajta iyo dadka tagida xajka loo fududeeyo muddo badan markaa arrintaasi uu ka shaqeynay sheekhu waxa kaloo wadamo badan ayuu wacyigelin diineed iyo barnaamijyo tagay muxaadarooyin fara badan oo ka tagjeediyay sheekhu wuxuu kasoo qayb qaatay xalintii dagaaladii sokeeye dalka ka dhacay qayb weyn markaasi uu ka ah sheekhu sidoo kale waxa uu qayb weyn ka ahaa inta badan wuxuu caan ku yahay waanada iyo wacdiga diiniga ayuu caan ku yahay dad fara badan oo markaa wanaag aan u soo jeedina qayb fara badan ayuu markaasi wax ka qayb qaatay haddaynu xusno qaar ka mid ah ardaydii sheekhu waxbaray ardayda waxaynu ka xusi karnaa kumanaan adduunka ku kala filiiqsanayo sheekhu waxbaray dadkaas waxaynu ka xusi karnaa kow dadka wax ka bartay waxaa kamid ah sheekh maxamed aadan sheekh la yidhaahdo oo imaamka masaajidka cali bataana sheekha kale waxaa kamid ah sheekh cabdiraxmaan axmed sheekh la yidhaahdo waxaa kaloo kamid ah culimmada wax ka bartay sheekh khadar xasan aadan khayr tajwiid sheekh la yidhaahdo waxaa kaloo kamid ah sheekh cabdikhaaliq sheekh axmed oo ah maamulaha madrasadaha ashaatibiya waxaa kaloo wax ka bartay sheekh maxamed xuseen faarax oo ah madaxa qaanuunka jaamacadda hargeysa sidoo kale waxaa wax ka bartay mubaarik ibraahim aar oo mar soo noqday gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda hargeysa iminkana ah gudoomiyaha jaamacadda beder waxaa kaloo kamid ah sheekh maxamed caydiid dadka wax kasoo bartay waxaa kamid ah sheekh aadan cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha macaahidda ibnu cabaas ee qur-aanka lagu daraaseeyo dhammaan culimada waaweyn hadda iyo sheekha muddo fara badan wax ka baranayay goobo kala duwan ay markaa wax ka barteen waqtigoona wuu kala duwanaa isku mar sheekhu uma wada dhigin balse sheekhu waxayuu markaa u wada dhigay guntii iyo gabagabadii sheekh maxamed cumar dirir waa mufti weyn oo su-aalaha la weydiiyo qof wixii markaa uu ka shakiyana uu la yimaado waa sheekh weyn oo qur-aanka tafsiirka caan ku ah diinta ilaahi subxaana watacaala iyo dacwada ku caana ilaahay baan subxaana watacaala uga rajeeynaa caafimaad iyo cimri dhar waxaan rajeynaya taariikhdiisa wax kooban laga fahmay dee kulley sheekhu waa badweyn taariikhdiisa lagama gayan karo insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa inaad asxaabtiina la sii wadaagtaan dhammaantii waad mahadsantiin